muuqaalkii u dambeeyay ayaan soo gaarnay. muuqaalkii hore waxaan ku baranay sida attendance rule loo saxo. muuqaalka u dambeeyay waxa ku saabsan yahay print sida loo daabaco. attendance calculation inaad calculate ku sameyso waa daabacid. attendance markaad rabto inaad daabacid waa dooranaysaa kadibna calculate baa ku dhufanaysaa. calculate markaa ku dhufato waxa ku soo baxaya scope of your choice. after calculate markaa ku dhufatid recordka ayaa ku soo baxaya sidan uu kugu soo baxaya. excel baa ka dhigan kartaa daarabtid. aan si toos ah markaa aragno xogaa shaaca baa ku jira. okay, report buttonka report ayaa ku dhufanaysaa. xogta markaa soo download gareysid. halkan waxaad dooranaysaa maxay qaybta arabtid HR baad dooranaysaa ama qaybta arabtid baad dooranaysaa ama employee-ga arabtidna waa sii dooran kartaa ama all baad dhigi kartaa. taariikhda arabtid inaad xisaabisid tusaale ahaan koodii bisha ka bilow ilaa iyo koodii bisha ama bisha koodeedii ka bilow bisha koodeedii ilaa iyo 30 bisha ayaad dhigi kartaa marka ilaa iyo 30 bisha. okay, calculate baa dhaysa marka qofkii marka waa la xisaabinaya okay, marka tusaale ahaan hal macaamiil baan dooranaya ama hal shaqaalaan dooranaya. hal shaqaale ayaan dooranaya koodii bisha ilaa iyo marka intaas halkaa shaqaale marka xogtiisi check in waqtigu soo gala halkan ay ka muuqanaysa. check out halkan ay ka muuqanaysa iyadana marka simply halkan waxa ka muuqan doona check off check out halkan ka muuqan doona report baa dhahaysa marka user account report ayaa dhahaysa. kadib halkan waxa ku soo baxay marka time ku baxay late haduu dahay early haduu hore u baxay true intaas bay ku soo baxayaan. hadaad marka excel baa dhigi kartaa export data dhigi kartaa excel baa ka dhigi kartaa. excel ka marka hadaad rabtid column-yada arabtid inaad iska reebtid date-ka name-ka tusaale ahaan waa diisanaysaa number-ka waa ka reebaysaa on duty off duty iska daa on duty iska daa clocking machine-ka ka saar meesha clock out iska daa machine name-kana ka saar normal iyo real time iyo waxaa soo dhan late iyo early waa muhiim absent inuu maqan yahay overtime iyo iska daa work time iyo execute kan iyo must check in iyo check out xitaa iska saar. marka column-yada markaa saa u habeystid oo arabtid excel inaad geysid halkan waxa ku qoranaysaa marka magac ayaa ku qoraysaa magaca ku qoraysaa excel baa ku qoraysaa kadib marka saas kugu save gareysnaanaya. okay baa dhahaysaa marka excel baa marka xogta laga dhigayaa waad save gareynaysaa xogta meesha rabtid ayaad ku save gareynaysaa. xogta marka magaca u bixinaysaa waa save gareynaysaa attendance excel-ka marka saas ayuu kugu save gareysan yahay. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa koorsada aynu ku baraynaa attendance management system. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen. wixii support aad u baahantiin haday shaqo tahay iyo haday taageero tahay haday cilad idinka qabsato insha Allah diyaar baan u nahay inaan idinka saacidno. whatsapp-ka uma message noogu soo diri doontaan kadibna qofkii markaa jooga ayaa idinka soo jawaabi doona macadka insha Allah. marka ku soo dhawaada halkan marka waa Brain Institute. aniguna waxaan ahaa Cabdimalik Maxamed Xasan oo idin la socodsiinaya course-gan. Brain Institute waxaa ku jira maadooyin badan oo ay ka mid yihiin CCNA iyo qaababka CV-ga loo qoro iyo qaababka security-ga. macallimiin kala duwan ayaa dhigta insha Allah. marka ku soo dhawaada haddii aad ka faa'iideena sii gudbiya dhalinyarada iyo waxa cilmiga ka faa'iideen ardada kale u sii gudbiya insha Allah lana wadaaga inay ku soo biiraan macadka oo ay ka dhigtaan koorsadana insha Allah waxaan rajeynayaa inaydan share gareyn doonin ilaa qof macadka iska diiwaan geliyay mehe sidaad idinku isku diiwaan geliseen maadaama juhdi badan uu naga galay waxa aan ku bixinayna ay aad u yar yihiin. aad baad u mahadsantihiin insha Allah. waxaan idin rajeynayaa guul iyo nabad insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.